waxaan weydiiyay halka uu igala hadlayo ayaan la aad bad u mahadsan tahay iminka waxaan ku suganahay oo daawayaasha TV-ga Universal aan kala soo hadlaya deegaan lagu magacaabo dan oo ku yaala gobolka Sool isla markaana aan ka nimid deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool halkaas oo saakay dagaal uu ka dhacay isla markaana uu u dhexeeyay ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka Qaatumo lana filayay inay ka qabsoonto xafladii caleemasaarka madaxweynaha maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer haye sidee wax u dhaceen dagaalkaas ayaa soo qaaday mas'uuliyadda iska leh ciidamada Somaliland ayaa dagaalka soo qaaday waxaana intii aysan la gaarin xafladda caleemasaarka madaxda cusub ee maamulka Qaatumo bilaabatay xabadii ama rasaastii u dhaxaysay ciidamada Qaatumo iyo kuwa maamulka ee Somaliland waxaana dagaalkaasi uu ka bilowday meel wax yar u jirta ama afaaska hore ka ah goobta loogu talagalay inay ka qabsoonto xafladda caleemasaarka madaxda cusub ee maamulka Qaatumo maxaa qasaare ah oo labada dhinac ah waad ii sheegi kartaa dagaalka inta aad ka warqabto isku dayo fara badan oo TV-ga caalamiga ee Universal uu la sameeyay dadka deegaanka iyo saraakiisha ciidanka waxa inoo suuro gashay inaan ogaano sida wararka qaar ay sheegayaan inkastoo xaqiijin rasmi ah oo aan haynin in ciidamada Somaliland 4 askari ay ka dhinteen ciidamada maamulka Qaatumona ay 3 askari ka dhinteen mana jirto ayaa la ilaahay imika si rasmi ah u xaqiijin karta qasaaraha rasmiga ah ee dhaawacii ka dhashay dagaalka saaka doorta ka dhacay Saaxdheer ayaad ku sugnaydeen haddana waxaad igala hadlaysaa dan maxaa idin geeyay halka dan waxaan geysay ayaa la soo dhowsooday Saaxdheer dagaal ka dhacay qasaaraha ka dhashay wariyaasha TV-ga Universal waa qeybgalayay xafladda caleemasaarka madaxda cusub ee maamulka Qaatumo ayaan kamid ahaa balse intaan la gaarin howlahaas oo dhan dadku magaalada way isaga soo barakaceen oo ay ka soo tageen wufuudii ka timid magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyo guud ahaan qayb ka tirsan dalka ayaa iyaguna gabi ahaanba deegaanka Saaxdheer isaga soo baxay balse madaxweynaha goob lagu magacaabo Eerago oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka dhacday xafladiisa caleemasaarka marka laga soo tago dagaal ka dhacay qasaaraha uu geystay saameynta dadka deegaanka uu ku yeeshay kadibna meesha waxaa ka hadlay ayaa culimadii dhaqanka ka timid magaalada xarunta dalka ee Muqdisho ee goobta joogay xafladda caleemasaarka ka qaybgeli lahaa ka baaqsaday balse deegaanka lagu magacaabo Eerago ee xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ku yaala ayay ka hadleen madaxday u mahad celiyeen waxaana ay sheegeen inkastoo muuqaaladooda aysan inoo suuro gashin daawayaasha inaan tusno in ay ka fogyiin wixii saaka ka dhacay deegaanka Saaxdheer waxaa sidoo kale hadlay Professor Cali Khaliif Galeer oo isaguna ku tilmaamay waxyaabo laga xumaado qasaarihii ka dhashay dagaalkii saaka lagu soo qaaday xafladiisa caleemasaarka beesha caalamka ayuu abiil ama codsi u diray dowladda dhexe ee dalka ayuu la hadlay maamulada dalka iyo guud ahaanba siyaasadaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo xaaladda deegaanka oo ku noqnoqday madaxweyne Professor Cali Khaliif Galeer ayuu diiradda ku saaray markii ay dhacday kadib xafladiisa caleemasaarka ee deegaankan Eerago lagu magacaabo ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ugu dambeyn Cumar xaaladda deegaanka hadda aad ku sugan tahay maxaad ku tilmaami lahayd waxaan ku tilmaami lahaa markaan muuqaal ama sawir guud aan ka bixiyo deegaanka Saaxdheer waa meel dabcan deegaan yar ah oo dadka deegaanku ay maalmihii ugu dambeeyay ay kusoo qulqulayeen xaaladiisa inkastoo ay habeen caawo tahay waxaa la sheegaya in xaalad ay ka jirto ciidamada Somaliland ay dhinac ka joogaan deegaanka Saaxdheer ganacsi uusan jirin balse dadka deegaanka ay ka baxeen magaaladu ciidamadii aan kaga soo tagnay deegaanka Eerago ee ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya ee kuwii Qaatumo ahaa iyaguna waxay wadeen abaabul ay deegaankaasi ay doonayeen inay dib ugu laabtaan balse ilaa iyo imika xaaladu dagaal kama socdo laakiin cabsi xooggan baa ka jirta deegaankaasi Saaxdheer oo 3 cisho ugu dambeeyay